dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in amnigeeda uu khatar ku jiro kadib imaanshihii Soomaaliya ee saraakiil ka socda dalka Masar. Masar ayaa shalay markii ugu horeysay laba diyaaradood u soo dirtay Soomaaliya kuwaas oo la sheegay inay la socdeen saraakiil military oo khubaro ah sidoo kalena ay saarnaayeen saanad ciidan. hase yeeshee war saxaafadeed ka soo baxay goor dhaweyd wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia isla markaana uu ku saxinaa afayeenka wasaaraddaas ayaa lagu sheegay in dowladda Ethiopia aanay marnaba iska indhatireynin waxa ay ugu yeertay in gobolka ay Masar u horseedi doonto khalalaase amni iyo in cawaaqib xun uu ka dhasho imaanshaha ciidanka Masar ee Soomaaliya. Ethiopia ayaa sheegtay in amniga qarankeeda uu halis ku jiro kadib tallaabada imaanshaha militariga Masar ee Soomaaliya gobolkana uu gelayo markan marxalad xasaasi ah. Addis Ababa waxay sheegtay inaysan iska indhatiri doonin waxay ugu yeertay ficilada amnigeeda dhaawacaya ama taabanaya ee ka socda gobolka waxaana ay ku dooday in hadallo cadowtinimo leh ay uga imaanayaan dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ay sheegtay in marba marka ka dambaysa hanjabaadda Soomaaliya ay tahay mid isi soo taraysa. Ethiopia oo markii hore iyada laftirkeeda duulaan qaawan ku soo qaaday Soomaaliya madax banaanida iyo sidoo kale jiritaanka ummadda Soomaaliyeedna iska indhatiraysa ayaa wajahaysa wixii ka dhashay tallaabadii gardarrada ahayd ee Soomaaliya ay ku soo qaaday. dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa lagu amaanayaa tallaabada uu qaaday oo ah in xiriirkii Ethiopia meesha uu ka saaro isla markaana uu xiriir la sameeyo dowladda Masar sidii ay hore u dhihi jirtay Soomaalidu cadawgaada cadawgiisu waa adiga saaxiibka. taas ayayna u muuqataa hadda Ethiopia inay ka muujinayso cawaaqib xumo kadib duulaankii ay ku soo qaaday madax banaanida Soomaaliya iyadoo 1 January ee sanadkan 2024 iyadoo oo 1 January ee sanadkan 2024 heshiis kula gashay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. heshiiskaas oo ganafka ay ku dhufatay dowladda federaalka baarlamaanka federaalkuna uu ku sheegay inuu yahay mid sharci darro ah oo ka soo saareen qaraar rasmi ah. haddaba shalay waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ka soo degay laba diyaaradood oo military oo ay leedahay dowladda Masar kuwaas oo siday shaanad ciidan iyo sidoo kale khubaro ammaanka militariga ka tirsan Masar. maanta warar soo baxaya waxay sheegayaan in khubaradaasi ay gaareen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo kamid ah meelaha la geyn doono ciidanka Masar ka socda oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 10,000 oo askari. in Ethiopia ay qaylinayso isla markaana ay cabaad afka jabsatay ayaa ka dhigan in uu taabtay tallaabada ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba sidee baad u aragtaa hadalka ka soo yeeray dowladda Ethiopia aragtidiina la wadaaga muuqaalkan leegno saaro si share gareeya waa maasantiin saaxiibayaal.